waxaad arki doontaa makhluuq jinka ka mid ah oo la yidhaahdo qawl baa la yidhaahdaa waa makhluuq inta badan meelaha cidlada abuu ku nool yahay waxaanu qaaliban weeraraa habeenkiibuu dadka safarka hadduu nin keliya yahay safarka ayuu jidka u joogsadaa ama dadka caruurta iyo wax la mid ah ayuu ambiyaa intuu magacooda ugu yeedho dadka reemiyigana in badan way maqleen ilmaha yaree xoolaha la jooga ayaa magaciisa loogu yeedhayaa hebelow baa la odhanayaa dabadeedna ilmihii wuu yeedhayaa sawdkii magaciisa ugu yeedhayuu dabagelayaa aakhirka dambe ama libaax buu afka uga gelinayaa ama habar dugaa kaloo cadowa ayuu hafka uga geliyaa qawl baa la yidhaahdaa safarkana inta badan wuu eegtaa hadduu qofku kelidii yahay lidaalik baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga nahiyey in qofku kelidii uu safar galo oo yidhi waa qofka kelidii safar galaa waa shaytaan labaduna waa shayaatiin safarka waxaa ugu fiican 3 qof inay safarka galaan oo maalan hadduu mid xanuunsado kii kale hadday laba yihiin ma isagu dul fadhiyo qofkan xanuunsaday mise wuu wargeyn 3 buu nebigu ka dhigay haddaad safraysaan isku eegta 3 wax ka yar ha ku safrina hadduu markaa 3 uu idinku arko qawlku idinku soo dhici maayo waanu istusaa qofka oo ama muuqaal wuxuu isu tusaa bini aadmi oo kale shamaxyo wax la mida inta badanna qawlkaasi habeenadii saqda dhexe ayuu wadooyinka istaagaa oo idinka in badan sheekada maqla dadka gawaarida ku safra qaar badan oo gawaarida ay la ridaan oo marka la wareysto la oranayo maxaad gaariga kula qalibay uu leeyahay qof dumarahoo dharka ay xidhantahay yaab leeyahay oo wada dhalaalaysa ayuunbaa sidaa ii hormartay dabadeedna ka duubaan isiri waa ila qalimay gaarigii marka wuxuu isku dayaa mar walba inuu qofka halis geliyo waa qawl laakiin meelaha magaalooyinka iyo meelaha kuma noola qawl baa la yidhaahdaa xadiid daciif mar nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam alghaylaan waa jamcii nebi allow ka waran wuxuu yidhi hum saxaratu ljin haylaankanu ama qawlku waxa weeyaan nooca sixirka yaqaanee jinka ah ayuu ka mid yahay sucaala mid la yidhaah baa jira iyadana lafteedu meelaha dacallada magaalooyinka ayay degtaa inta badanna waxay isu muujisaa qof dumara ayay isu ekaysiisaa meelaha koonayaasha magaalooyinka iyo meelaha degaanada abay degtaa bini aadmigana wakhtiga fiidadowga abay iyo casar gaabadka iyobay soo dhaadhacdaa mararka qaarkood markaasaa bini aadmiga ay istustaa iyadoo qof bini aadmiga isu ekaysiinaysa waxaan xasuustaa hargeysadii hore nin waalaayo meelahan fadhfadhiisan jiray ninkaasi hilib loo ahaa casar kasta gabadh baa u iman jirtay qurux badan hilibka wixii u yaala bay ka iibsan jirtay markii dambe uu cilaaqay sheekadii waa la isla fahmay dabadeedna waa la isku lug daray way kaxaysay waqti fiida marka sida uu isagu ka sheekeeyey waxay i geysay buu yidhi dhul caalamkeennan aan ahayn oo laydhka ka baxaya iyo waxa la kala macaashi iyo baac mushtariga aanad malaynaynin gurigoodii bay i geysay marka waxay kula dardaarantay ku tidhi wiil yahow cadceed way kugu soo bixin guriga marka dhowr maalmood buu ka dadaalay inay cadceedda ugu soo baxdo maalin dambe ayay hurdadii la tagtay cadceeddii baa soo baxday wuxuu arkay isagoo meel gudaafada hurda boggana ay kaga jirto bahashan la yidhaha masacagalayda ay kaga jirto wuxuu jiifaa gudaafadaha naasahablo ayuu jiifay halkii ayuu ku waashay ninkii waxaa kaloon xasuustaa 85 haddaan 84 ahayn wiil dhalinyara oo ardaya oo neersanka barta isbitaalkii digfaar ayaa mar uu waxbarashadii ku yara caajisay buu xagga tarabuunka muqdisho usoo yara kacay digfaar iyo tarabuunkana waxoogaa bay isu jiraan intaanu iftiinkii tarabuunka soo gaadhin baa waxaa arkay naag cadar aada isugu buufisay deedna wuu cilaaqay
iyana way la qaaday waa la isa soo raacay waagaas ninkii garanaya dumarku waxay xidhan jireen kaba la yidhaa qaraafiico waxay ahaayeen kaba xagga hoose qori ah way sanqari jireen oo markay laamida lagu socdo qararac bay odhan jireen oo xagga hoose qori ahayd walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min siinatihinna si maxaanku idhaahdaa loo eego tallaabadooda iyo akshanka ayaa shaydaanku wuxuu hindisay inuu kaba qori ah oo biniaadmiga u soo sameeya marka intii madowga la soo marayay sanqadha wuu maqlayay wiilku laakiin waxaa uu islahaa kabihii qaraafiicaha ahaa bay xidhan tahay tarabuunkii marka lagu yimaado tarabuunka waddaa hormarta laydh baa ku xidhan siday u sheekaysanayeen buu hoosta oo lugaheedii eegay deedna wuxuu arkay inay leedahay qoob dameeraad ardaygii wuu sasay waa cararay wuxuu u cararay jihada iyo waqooyiga warshadda caanaha ayaa halkaa kaga soo jeeda inanku waa qayliye waa sasay waa orday koonaha warshadda caanaha oday baa fadhiya garweyn iska fadhiya alla adeer iga qaba buu ku yidhi markaasuu ku yidhi war maxaad aragtay alla adeer naan qoob dameeraadla baan arkay odaygii show isaga laftiisa isna jinaan deedna isna intuu qoobkii u soo saaray uu yidhi makanoo kale waha intuu halkaa laabta kaga dhuftay ayuu ku gujiyey oo yidhi matanoo kale cagtanoo kaley lahay yarkii yaraa koomuu galay meeshuna waa dad badani ma socdaan waa meel cidlaa oo halkan maxaanku idhaha isbitaalkii militariga ka xiga halkan warshaddii caanoo laga rawxay baa ka xigta waa meel cidlaa habeenkii oo dhan halkiibuu yarkii uu koomo ku jiray waagii markuu beriyey ayaa ilmihii oo meesha jiifa oo koomo ku jira baa laga qaaday tan haddaba iyadu waa tan had iyo jeer dadka xeebaha ay koocada u yaqaaneen tan iyagu aynaan saclaad innagu soomaali ahaan waxayna kooca ayaynu dhahnaayo inta badan dadka berbera ku nool yaala markay habeenkii xeebaha ay u baxaan way arkaan marka middan koocada la yidhaahdo ama noocan dumarka ah ee u soo banbaxa dadka waxay yidhaahdaan dadkan cilmi baarista ku sameeya jinka xayawaanka la yidhaahdo addi'b oo inagu u naqaano af carabi ahaan waraabaha ama dabciga waxa ilaahay awood u siiyey inuu arki karo jinka marka noocan oo kale way is arkaan waanu cunaa waraabuhu jinka noocan oo kale ah isagaa la dagaalamo uu cunaa waxaa jira bay yidhaahdeen qaar jinka ka mid ah oo badaha dhexdooda ka ugaarsada makhluuqaadka bini aadmiga waa kanaynu inagu u naqaano qaraasina waa burcadbadeeda marka waxaa jira jin burcadbadeed ah oo badaha dhexdooda ayay ka qaraabtaan waa wax quwad weyn midabkiisuna wuxuu u egyahay midabka dhagaxaanta badda ee madmadow wuxuuna isku dayaa in maraakiibta yaryar oo kale uu qallibo oo dadka la tuuro ayuu isku dayaa waxaana la yidhahdaa kaas addahlaab ayay yidhahdaan waa daydega badda ayay ula baxeen waxaa kaloo jira mid ay ula baxeen ummu sibyaan oo in badan aa maqasheen ummu sibyaan ummu sibyaanku wax kale ma ahan waa nooc makhluuqaadka jinka ka mid ah oo isku daya inuu bini aadmiga dhibaateeyo inta badanna tarantu la dagaalamaa markay u timid xadiidkii saxiixa gabadhii dhabar furanku ku dhacay ay nebiga u soo ashkatootay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innahaa rakda min rakadaati ibliis dhabar furankani wuxuu ka yimaadaa waa jug uu ku sameeyo raximka dumarka ibliisku marka waa nooc ka mida jinka oo taranta bini aadmiga la dagaalama ayaa la yidhaahdaa caruurta yaryarna way istustaa markay caqli yeelato ilaa 4 jir ilaa 5 jir markay yihiin way isu muujisaa iyadoo makhluuqaad u eg ama xayawaan ama dooli ama bisad ama caynkaas caruurta way ka sasisaa dadka waaweynna hurdada ayay kaga sasisaa
xadiidkii kale saxiixa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii ka warramay ilmaha yari markuu dhasho ibliisku wuu gujiyaa ilaahay nabiyullaahi ciise waa ka badbaadiyey inni waciiduhaa bika wa durriyataha min ashaytaani alrajiim waa sababta marka ilmuhu uu dhasho uu u ooya bay yidhaahdaan cadaawad wuxuu ka qabo wuxuu isku dayaa ilmaha inuu kaa soo dhashay xataa uu dhibo wuuna gujiyaa waxaa kaloo jira mid ay yidhaahdaan shaq mid ay yidhahdaan shaqi waa shiin iyo qaaf waa kan iminka aynu inagu u naqaano dhanxiirka kan aynu inagu naqaano dhanxiirka marka laba qof buu soo dhex marayaa dhinaca wuxuu ku tusayaa qofkan inuu xayawaan yahay dhinacana wuxuu tusayaa inuu bini aadmi yahay marka labadii qof markay is eegaan wareedha xayawaankii naag maray muxuu ahaa war miyaad waalantahay bini aadmi uu ahaa wixii naag maray inay iyaga laftooda muran iyo dood dhexdooda galaan ayay rabaan waxaa kaloo jira mid la yidhaahdo cifriit ma huwa alcifriit cifriit waxaa la yidhaahdaa waa nooc jinka ka mid ah laakiin markuu gaboobo ee uu maamulna yeesho waa qabqablayaasha jinka wey macna alkalima waa qabqablayaasha jinka oo jinba jinkuu ka xoog badan yahay uu ka saldanad weyn yahay marka waxa weeyaan saldanadaha ay jinku leeyihiin madaxdooda ayaa cifriit la yidhaa jinka kalena wuxuu ku muquuniyaa xagga xoogga uu ka xoog badan yahay bini aadmigana itisaal bay la sameeyaan maxaan ku dhaha kuwan kahanada iyo kuwan shayaadiinta la shaqaysta xidhiidh bay inta badan la sameeyaan waana nooca bini aadmiga u adeega weeye oo ninkan maxaan ku dhaha sixiroolihii wuxuu la xidhanayaa nooc cifriidka ka mida marka cifriidkaasi intaa agagaarkiisa oo dhan isagaa kaga filaanaya marka hadduu doono inuu wax u soo xado wuu u soo xadaya maalan wuxuu odhanayaa inta badan kuwan shayaadiinta la shaqaystee dadka indha sarcaadka u dhiga ayaa adeegsada oo waxaa la odhanayaa sheekho waxaan u baahanay maanta xalwad deedna wuxuu dalbayaa cifriidkiisii wuxuu leeyahay xertaydii waxay naga rabtaa xalwad deedna xalwadlayaasha magaalada ayuu tegayaayo intuu xalwaddii soo qaado ayuu soo hordhigayaa haye bal karaamadayda oo taase eega buu odhanayaa marka waa sidii dee nebiyullaahi sulaymaan ilaahay ugu adeejiyey cafaarida ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika xataa wuxuu isagu qorshaystay carshigii nebiyullaahi sulaymaan inuu soo qaadi karo isagoon albaab jebinin isagoon meel daloolinin farsamo uu yaqaano inuu ku soo qaado oo weliba saacada gudahood masaafo dheer uu kaga keeno marka waa nooca had iyo jeer ay adeegsadaan sixiroolayaashu oo maalan wuxuu odhanayaa qof baa u imanaya noocan maalan la shaqaysta jinka ayuu qof u imanaya qofkiiba wuxuu ku odhanayaa waa lagu sixray oo weliba sixirkaagii wuxuu halkaasuu ku aasan yahay cifriidkan ay wada shaqaystaan baa meeshii sii tegaya deedna wuxuu cifriidku isku sii xidhxidhay ayuu meesha ku sii aasayaa kan la shaqaysta shayطaan alinsiga shayaaiin alinsi waاljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura kanay wada shaqaystaan buu ku odhanayaa mariidkan kuu yimi waxaan ku aasay halkaasaan ku aasay kudha sixirkaaga baan soo saaraynaa ina mari sidii baa markaa qofkii lagu kaxaynayaa sixirkii uu sii aasay ama wixii uu sii aasay cifriidku ayaa qofkii la shaqaysanayay jinku uu isdultaagaya odhanaya halkan qoda halkii baa la qodayaa wixii shaydaanku uu ku sii aasay cifriidku ayaa laga soo saaraya ha maxaan idiin sheegay haye inta sixirkan yaa dhigi baa la odhanayaa isagu wuxuu rabaa yuriidu an yuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa markaasuu odhanayaa gabadha lagula qabaa ku aastay ama eedadaabaa ku aastay ama habarirtaabaa ku aastay ama dimaashadaabaa ku aastay dad iska beri ah ayuu qoortaysu gelinayaa jinkanu wax kale ulama rafiiqin ruuxan wuxuu rabaa un isagu inuu dadka isku dilo kan la shaqaysanayaana in yaroo qaraamaada ayaa adduun yarbu isagu u gelayaa marka cifriidkanu waynu ka hadli doonaa siduu ula shaqaysta bini aadmige waa nooca bini aadmiga la shaqaysta saldanaday kale leeyihiin oo maxaan ku dhaha dowladina dowlad uma gudubto oo mararka qaarkood waxay odhanayaan
qofkan xanuunkiisa ma taabanayno sababta oo ah waxaa ku jira jin ifriidka naga xoog badan iyo dawladda naga xoog badan jinkoodii ayaa ku jira bay mararka qaarkood odhanayaan anagu ma faragelin karo waana isxeeriyaan oo ay kala xoog badan yihiin oo baad bay kala qaadaan shayaadiinta iyo jinku ifriidkaas markaa waa ka noocaas oo waxa had iyo jeer isku dayaa inuu xidhiidh la sameeyo bini aadmiga qaabka xidhiidhka loola sameynayana waa laba qaab mid uun waa kaa maxaan ku dhaha laga barto kutubaha ay cilmi yani kutub ruuxaaniyaadka ay yidhaahdaan iyo qaab cibaado darro iyo macsiyo iyo wuxuun aqoon darro intay ku jeclaadaan u badan haween islaamaha gaboobay ama dumarka ayay u badan yihiinoo kuwaasa xidhiidh la sameeyaan kuwaasaa markaa waxay odhanayaan waa darmaantayadii darmaan bay ula baxaan marka ay ku soo degayaan way maxaan ku dhaha xadraynaysaayo way isbeddelaysaayo markaasay codka ragga yeelanaysaayo markaasaa qaad iyo sigaar ay burburinaysaayo intaa waxay xidhanaysaa koodh iyo qamiis iyo waxbaa loo xidhayaa nin bay iska dhigaysaa marka ay ka yani warramayso wararkii jinka ay soo gudbinayso marka qaabka ay jinka ula sheekaysatay waxaasna waa mawduuc inoo hadhay oo aan ka warrami doono marka hada alcifriit hadduu yahay cifriit saalixa oo ilaahay yaqaana dawladdiisa wuxuu ku ababiyaa waa wanaagga hadduu yahay mid mufsidana waa kaa maxaan ku dhaha makhluuqaadka fasaadinaya waxaa kaloo jira jin la yidhaahdo qariin qur-aankaana sheegay oo ilaahay kaga warramay oo qof kastoo bini aadmiya laba qariin baa la socda qariin malaa'iga iyo qariin jin ah waa ka ilaahay qur-aankiisa ku sheegay suurat lqaaf wa qaala qariinuhu hada maa ladaya catiid qariinkiisii wuxuu yidhi markuu ilaahay yani hor keenayey kitaabkii uu ka qoray waa malaa'igtii markaa taas jinkuna markuu ilaahay ka warramayay qariinkooda wuxuu ilaahay suurat lqaaf ku yidhi qaala qariinuhu rabbanaa maa adaytuh walaakin kaana fii dalaalin baciid marka kaa makhluuqaadka la socda ee aan ka hadhayna maalintaa uu dhashay la raaciyo ilaa intuu ka godgelayo la socda ee ka warbixiya waxaa la ydhaha qariin baa la ydhaha waana ka inta faraha badan warbixinta siinaya sixiroolayaasha iyo kuwan caraafiinta iyo kuwan faaliya iyo arrimaha kuwa uga warramo weeyaan oo marka qofka bini aadmigiihi uu shayaadiinta la shaqaysanayo waxaa dhacda in qariinkaagani uu ka warbixiyo xaaladaada maalan qof xanuunsanayaa wuxuu imanayaa habartii fooxisada ahayd ama kii faaliyaha ahaa ayuu u imanayaa dabadeedna waxay isku dayaysaa marka uu qofkaasi u yimaado in muddo horta ay maaweeliso ruuxa inta warbixinta ay kala qaadanayaan labada qariin adiga qariin baa kula socda iyadana qariin bay leedahay qariinkaa adiga kula socda baa qariinkeeda u warramaya qariinkaasaa markaa qalbiga ku xashaashaqaya kan sixiroolaha ah hadhow marka yani warka ay dhammaysato intaa warka la kala qaadanayo mid walba qaab bay isticmaashaan qaar baa waxay sameeyaan foox bay dabka ku ridaan fooxaasaan wax ka dhex arkaynaa bay yidhaahdaan qaar baa waxay sameeyaan aleel bay soo qaadaan aleeshaasaa la rogrogaa habar dhali weyday aleela ku waalatay aleeshaasaa la rogrogayaa qaar baa waxay sameeyaan intay bun soo qaadaan koob bun ah bay in yar cabbayaan deedna markay daacdaacaan bay bunkiisaa ugu warwareejinayaan koobka gudihiisa markaasaa intaa warka la kala qaadanayo ayaa ama bunkaa lagu maaweelanayaa ama fooxa ama wixii la mida hadhow markay warbixinta qariinkeedu u soo gudbiyo ayay odhanaysaa haa waan ku gartay soo hebel ma tiid soo haa magaciisa ma weydiinaysa ma ogtahay soo hebel ma tiid haa soo magaalo hebla kamaad iman haa waadhe soo 4 caruura walaalnima tiid haa beri dhaweyd islaantaadi sooma dhiman haa iyagaa dilay iyagaa dilay haa markaad habeenkii seexato soo xumad yari kuma qabato haa markaad isyaro rogrogato soo feedho kuma yaro sanqarhaan haa waxaasoo dhan bahalkanaa u sheegay markaasoo allah wallaahi xanuunkaygii laftiisii bay garatay buu odhanayaa waan ku fahmay marka waxaad odhanaysaa waxaad yeelaysaa
adiga waxaa kuu furdaamaa wan galaalan keen wan galaalan baad keenaysaa adduun intaa la-egna waad keenaysaa intaasaan kugu furdaaminaynaa hadhowtuu baxayaa wuxuu la waryaare horta islaantani waa awliyo oo wax allaaliya wixii aan ahaay oo dhan bay sheeg wax maba sheeginba mararka qaarkood waxaa odhanaysaa waryaare berigii aad yarayd adigoo ina yaroo kula eego hebel la idhaa la ciyaaraya soo geedkamaad soo dhicin berigaasaa geedkaasaa la hoos fadhiyey geedkaasaa lagaa raacay ilaa waagaa waa lagula socday bay ka odhanaysaa ninkii wuu aaminayaa qofkii wuxuu aaminayaa tani waxa weeyaan waa waxeedu waa dharaar weey wax kalena ma ahan waxa weeyaan qariinkan iyo qariinkan wada sheekaystay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xaqiiqo ahaan waa ka warramay masalada ee yidhi marka suuqa loo soo dhaadhaco waa xadiis saxiixa qariinka qofka mu'minka ah la socda iyo qariinka qofka caasiga ah la socda iyana way is arkaan maalan markay labadii qof iska hor yimaadaan iyagoo is yaqaana ay isa salaamaan intay wada taagan yihiin labada qariinna way iswarsanayaan markaasuu odhanaya war hebel warriyo maxaa sidan kuu galay sawdigan qallalay ee qaawan ee bilaa kabaha ah ee aan feedhnayn ee basaasana raamaystay markaasuu odhanaya war heedhe war mid inkaarabaa aniga laygu darayoo aan waxbaba ka qaadi la'ahay markuu kabaa xidhanaya bismillaahi baa odhanaya markuu guriga gelaya bismillaahi baa odhanaya markuu wax cunayo oo ka xadiidkii saxiixa haddee marka qofka bini aadmiga markuu gurigiisa gelaya hadduu bismillaahi yidhaahdo shaydaanku waxay odhan caawa laa mabiita lakum ayay odhanayaan hadduu markuu guriga gelayo uu bisimka ilaabana guriga way la soo gelayaan oo way dugsanayaan laakiin markuu wax cunaya hadduu cuntadii waxa laa cashaa lakum caawa casho ma lihidin ayay odhanayaan iyagoo sidaasa iswaraysanayaanoo markaasuu odhanaya war kan soo ma aragtid war waa habadaroo anigu waan iska saarahay gooryaaya oo markuu wax cunayo ilaahay ma xasuusto markuu feedhanayo ilaahay ma xasuusto markuu dharka xidhanayo markuu xaaladihiisa oo dhan waa rafiiq baan lahay waa la wadaagaa washaarikhum fi اlamwaali wاlawlaadi wacidhum wamaa yacidhum الshayطaan xataa waxay ka gaadhsiiyaan inay haweenta la isticmaalaan sadiq aw laa tasaddiq marka ninkii yani wuxuu xidhan yahay dhar buu xidhan yahay shaydaankii qariinka ahaa waa feedhan yahay waa dhalaalaya waa naaxay wuxuu lala nool yahay bahal habadahoon ilaahayba ku xidhnayna waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin soocanka ma hayn fahuwa lahu qariin maba ka tegayba wuu jeclaanayaa de isagunbuu la rafiiqayaa ilaa wuxuu ku qaba meel kale ka heli maayo marka hada alqariin isna raad badan buu nolosheena ku leeyahay oo in badan oo loo tago oo faaliyayaal ama fooxisayaal ah warbixinta ay ku siinayaan warbixin ay ka heleen qariinkan adiga kula socda wey warbixin ay ka heleen qariinkan adiga kula socda shayaaiin alinsi waاljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura marka kaa waxaa la yidhahdaa qariin baa la yidhaahdaa waxaa kaloo jira mid waswaas alkhannaas la yidhahdo ka qur-aanka lagu sheegaya waana ka ugu shar badan ee had iyo jeer ku aloosiya bini aadmiga macaasida waxaa kaloo jira mid la yidhaha camaar almakaan makhluuqaad jin ah oo meelahaynu degannahay inagu weheliya meelahaynu degannahay bay inagu weheliyaan camaar baa la yidhahdo guryaha ayuunbay iska degan yihiin wax dhibaataana dadka yaalaa kuma yeeshaan marka waxaa kaloo isna jira mid la yidhaahdo khinzab halkaas shaydaan keliya ayaa wax xadiid saxiixa ku soo arooray jira khinzab ama khanzab dhe khinzab ama khanzab midkaa doontaba dhe halkaa xadiid keliya ayaa shayaadiinta asmaacdooda la sheego oo dhan wax daliil loo haya kaasaa jira anas bin maalik baa wuxuu odhanayaa cusmaan ibnu abilcaas saxaabigii la odhan jiray ayaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga cawday salaadiisii waswaas badan baan ku qabaa buu yidhi nebi allow salaadii qiraa'adii baan ku qaldamayaa oo salaadaydiiba maxaan ku idhahdaa sahwi badan baan qabaa markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam daaka shayطaan yuqaalu lahu khanzab kaasi waa shayطaan waxaa la yidhaahdaa khanzab waa generaalka loo igmaday
إنه وسواسية مخلوقات إلهي الحريري خنزب بالله إلى هذا وحولي وحال قبل الله بيا مركات حيرانا يسوك بالله بيا إلى أنت تكسل من نقصان يسوك دين ماي وهذه أركيدتك قاركود أنت يسوق على مساجدك أي ما أنت الله أكبر الله أكبر الله أكبر تصبح هنا يا هدي قدك أو ككعيو أو الله أكبر تكبد بهذا مركز صدنا وفرسنا بسم الله بسم الله بسم الله أنت نمو قرية وكبد بيايو مركز صدنا التحيات الأسمو قرية إلهو كسلام نقصنين والشيطان وحي اسكديا قراءة هذه أديك إنه كلا دحكلا خنزب الله يرهضا وبها لو قلت لك خشوع بين آدم المسلمين تاينو كدلو marka wuxuu nabigu yiri warbahaasi wax ma bahalkii baa ku haleelay khinzab baa la yiraahdayo salaadu ku fadhiisanaya marka qofka muslimkiihi haduu culimada fiqiga wax kala xiriiro cudurkaasi uu ka beela Allahu akbar tuu isogay qofkan inuu Allahu akbar leeyahay ni waan ku celcelin hadaad ku celcelinayso badogtan iska days kaliya waxa daweyn lahaawun xadiidkii rasuulka sallu kama ra'aytumuna yusalli ورسولك إلهي هل مربو الله أكبر يلي ورنيه هلك صلاة هذا كحد بلاد وهلك دليلك الله يستطيع وانشرين الله أكبر لا يراه بل نتص مكيني كرده كقفك هدات راور أديكي بابد بدعكو تشله سنة شريعة مو أقوله الله أكبر مربى لا يراه هذا يدل مع العليا سنة النبي قالوا وين الصلاة دي اللي تكوني النبي قالوا قد إذا صلوا كما رأيتموني أصلي هل كامركو كجدبو فاتحة وفريسانية فاتحة باكو أتكانيسا إياك نعبد سبحان الله العظيم رجال يكون على هذه الحمد لله فريستي ما مذهبك معاهم في هذا حنابلة قالت يا فقرأوا ما حنفية فقرأوا ما تيسر من القرآن وهرنيك الشيطان كي خنزر فاتحة بوجبور أنت لا سوق بصريسو عذر دار بعض لا يضاهي وجبور فاتحة وواحد أقرأ القرآن كوحي كوف ضد آخره قيل بالوجوه ياي حنابلة كنقوا فاتحة حنابلة كنقوا حنفي كنقوا صادرك ميس هل كاسو كل بميل سوق ليا كل بميل سوق ليا كل بميل سوق ليا مركا قفك مسلم كهدو سنة النبي أو كحدمو ميل أو سمر مهلية ميل أو سمر مهلية من باكرة إنكار قبا وحديث ضعيف في شيء الله يرهضه والهان بالله يرهضه والهان بالله يرهضه حديث لكن وحا إسنا القابل سيبا يرهضان ويسده وحي طهارة أبو يساق قابلا وحاد أركيسا نين انتو سوليقا قالوا ما انتو حلاسون قرية الله يهديك ومحي وحانا ذو الدعا كادي باني قد دمانين وسألك قد دمانين وحويان هذا أقرده إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان كتابك هذا أقرده وحبا دمتك بكسوين لهي وحوهرت أفر السنة يا طهارة ما أنت روحوا قريان والله كادي كامر دمان كادي كامر دمان كادي كامر دمان جمع إيه جماعات بكسيتينية سيدي هذا وحال الله إلى هذا إبتا إيه الناس كوتا تابشة ويكو ضرران ناس كدومر كإرمان هدي ما أنت الله تابتو عالمية دينية ما دينيسو إبتا هذا هداد ما أنت نيتشي دمر كاتكاش سنة قيام كواي ميس هم قريقان أدركتو إلهي وحو قلت لك لأنه دينا عريحه إما كأدو سجود سن هذا عن رفلق استراحة ما يفوز أنه غنس هو يتقيسا إلهي بقى قلت لك لأنه شاي سريحه كاذدنا مركا آدم ما يستو إساقا أوتوماتيكالي إسوسو صفينيا مركا أي دبعدا قدام بيسا كاسو بحضو إيه هذا بسطو إنه دبعدا قدام بيسا كاسو بحضي بيها كو استيجيسو واحد بو صوب حيا بمجرو مرقني وحو سور ريحان وحي كاد هايستا كيماده هدانا ادغو ارماناyneen waad joojinaysaa isaga marka ka dhamaanaya wuxuu marka rasuulkeenu ku daweeyay masalada alayhi salatu wasalaam marka aad istijada dhamaysato hadaad shakiga qabto
أنت حفنا ير أما صعب يرو بيا قادته هلك كنت قبضك كشو مركز تو إبليس كويلا كاذب كاتمه وراء بنت أبيان سكوا هي ده ده سواد قرانه دبل الضباط يسا إنه كويلا هذا كاذب كاتمه والله أنا وداعي هذا الدود الرسول كقادته صعب يرو بيوم القادن واتسكشوا بي خلاص شك الدمبو كاذب لا ضاي وحانت أوجاتا مرقا إلهي كوسميجي إن أنو يسوي إسكان يقين هدانو عذر كدعين أو هدا عذر كليلا سلس البول كقدعه وده شريعتنا حكم قارب كله قسوا باب وعذر بنا آدم قار كود كدعه كاد دبقي الله يرهضا باب دم بيلاد باب سلس البول بالله يرهضا لكن هذا الشباب دايرتن محن كنا وضع مرقا هدانا المسكوشي بكسو بحي ما أنتو دم بتسوليك دمت تاجنانيسا هنا يرى شيء تويشر ما كاجا صباحيا هاري كارو كدعه ما حكوا كدعه كادي بايك دم الله وافقي قابني وي وحنا أو إجمن بالله يرهضا والهان نلا يرهضي عيد مدي ساوي إجمن بركا وقتك هو يقول هذا